السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناسن لما نبض الصوماليين مركز جوجتان iyo si kastoo aad maqlaysaan mooshinkii dhawaan laga gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa fashilmay kadib markii uu buuxin waayay shuruudihii uu ansax ku noqon lahaa. haddaba warqad goordhaweyd ka soo baxday xafiiska xogayaha guud ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sidaani u qornay. jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya golaha shacabka xafiiska xogayaha guud ku gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ujeedo xaqiijin tirada xildhibaano ee sida rasmiga ah u soo gudbiyay hindisaha xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 2018 mudane gudoomiye waxaan si xushmad iyo qadarin leh kula socodsiinayaa in xafiiska xogayaha guud ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay soo gaareen qoraallo dhan 14 oo ay soo gudbiyeen xildhibaanada magacyadooda iyo dacwadoodu halkani ku lifaaqayeen. xildhibaanadani waxay qoraal ku soo xaqiijiyeen in lagu been abuurtay magacyadooda oo aysan kamid ahayn xildhibaanada hindisahani soo gudbiyay. xildhibaanadani ma aha xildhibaano ka noqosho hindise dalbanaya sida ku qeexan xeer hoosaadka golaha qodobkiisa 75 farqadiisa afraad ee waa xildhibaano qoraalkooda ku cadeynaya in aanay marnaba saxiixin hindisahani oo lagu been abuurtay. haddaba mudan gudoomiye aniga oo gudanaya waajibaadkayga ah mas'uulka maamul ahaan golaha ugu xil saaran xaqiijinta dukumeentiyada golaha tirada qoraalada saxiixyada soo jeedinta hindisaha naloo soo gudbiyay oo dhamaa 92 haddii laga jaro tirada xildhibaanada qoraalkani ku soo gudbiyay in laga been abuurtay oo dhan 14 waxay ku soo harayaan 78 xildhibaan. haddaba tirada xildhibaanada ku soo haray hindisahani ee xaqiiqda ahi ma buuxinayso tirada uu qodobka 92 qabo farqadiisa labaad ee dastuurka ku meel gaarka ah oo sharciyadeedu ansax ku noqon karto 3 meelood meel tirada guud ee xubnaha golaha shacabka oo dhan 92. haddaba sidaasi darteed waxaan kula socodsiinayaa in hindisaha xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 9 bisha 2018 aysan soo buuxin shuruudihii dastuuriga ahaa ee aanu kor ku soo xusnay. intaas ayaan ku soo gabagabeynay hada bilaa tawfiiq.